oo aad qadariso xataa waxay sababaysaa inuu ku qadariyo kuna jeclaado adiga. qodobka saddexaad, oofinta ballanta. mar walba ballanta oo aad oofiso ama waxyaabaha aad ballan qaado oo aad sidooda uga soo baxdo waxay kordhisaa rabitaanka iyo jacaylka uu ku hayo qofkaasi. qodobka afraad, ammaanta. badanaa ammaantu waxay ka mid tahay waxyaabaha aadka la iskugu soo jiito ee qofka bini'aadamka ah lagu kasbado. haba u badnaato xagga dumarka. wiilow isku day mar walba gabadha aad jeceshahay inaad si joogto ah u ammaanto una sheegto inay tahay qofka ugu quruxda badan adduunka oo aysan jirin dheeman kale iyada maahee. qodobka shanaad, kaftanka. shukaansi bilaa kaftana waa shaah bilaa sonkor ah. badanaa way yartahay dadka isjecel inay aad u kaftamaan sida asxaabta oo kale, balse waxaad ogaataa kaftanku inuu jacaylka ama xidhiidhka u yahay muhiim oo aysan dhacayn in la kala caajiso. isku day maalin walba oo aad saaxiibka ama saaxiibadda la hadlayso inaad xoogaa la kaftanto, la qosasho, la faraxdo, waayo waxay idinka dhigaysaa inaad noqotaan dad aad isku jecel, aadna isku daneeya mar walba. qodobka lixaad, labiska. ugu horrayn isku day inaad ogaato midabada ama kaladhada uu ka helo qofkaasi, labiska nooca uu jecel yahay isagu. kadib mar walba oo aad la kulmayso isku day in aad ku labisato noocaas. xataa haddii aad kala fog tihiin, mar walba oo aad la hadlayso ku labiso waa muhiim. taasi waxay kalifaysaa in qofkaas aad soo jiidato oo uu dareemo wax walba oo uu ka helo in aad adiguna ka hesho oo aad isku dooq tihiin. waa muhiim midaasi. نفتيدنا